is the op-ed published in the waxaa dhawaan lagu daabacay wargeyska fashilmay ee New York Times warbixin inkastoo aan la shaacinin ruuxa qoray xaqiiqdii waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa fulay waa inaad fiirisaa qof garanaya ma jirto qofka uu ahaa rag iyo dumarba waa la yaab laakiin inagoo eegayna danta ammaankeena waxay ahayd in New York Times uu soo daabaco qofka magaciisa waxayna ahayd in wariyaashooda ay baaraan markaas ayay noqon lahayd sheeko dhameystiran macnaha markaad isbarbar dhigtid Washington Post iyo New York Times labadaba weligay kama helin sheeko wanaagsan macnaha markaad eegtid waxyaabaha aad ku xun oo ah waxa dhacay maanta waa waxa aad looga xumaado waa qayaano qaran oo aad u xun waadna garan kartaa xitaa xisbiga liberalka ee ani inacab waxay dhaheen waa waxa aad u xun oo aadna u fool xun